wararka laga helayo gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in saaka aroortii hore kooxda Al-Shabaab ay weerar dhabagal ah ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolkaasi oo dhaca bartamaha Soomaaliya. Weerarkaas ayaa la sheegay inuu geystay khasaare aad u xooggan. Weerarka ayaa si gaar ah uga dhacay halka loo yaqaan Afariirdood oo ku taalo duleedka magaalada Beledweyne, sida ay xaqiijiyeen ilo dadka deegaanka ah. Xoogga weerarka fuliyay ayaa gubay ilaa 7 gaari oo ay la socdeen dad shacab ah, waxaana sidoo kale rasaas ay ku fureen dadkii saarnaa. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in kooxda weerarka qaaday ay dileen ilaa 20 qofood, isla markaana lagu gubay 7 gaari kuwaas oo ka baxay magaalada Beledweyne. Xaaladda ayaa weli ah mid kacsan, waxaana haatan dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayaa deegaanada hoos yimaada magaalada Beledweyne, halkaas oo isku fidiyeen ciidanka dowladda. Dhacdadan ayaa ku soo aadaysa xilli ciidamada dowladda iyo kuwa Hirshabeelle oo garab ka helaya maleeshiyaadka macawisleyda ay howlgallo ka wadaan gobolka Hiiraan, halkaas oo dagaalo culus ay ku dhex mareen Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda, kuwa Hirshabeelle iyo maleeshiyaadka macawisleyda ah. Kadib weeraradaas, kooxda Al-Shabaab ayaa bilowday weeraro dhabagal ah oo ay ku qaadayaan deegaanada howlgalladu ay ka socdaan. Dagaalka u dhexeeya ciidanka dowladda iyo Al-Shabaab ayaa ka sii daraya, waxaana kooxda Al-Shabaab ay iyaguna weeraro ku qaadayaan deegaano ka mid ah gobolka Hiiraan. War-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay weerarka xooggan ee saaka aroortii hore kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyeen duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka xun tahay weerarkaas oo ay sheegtay in lagu laayay ilaa 20 qofood, iyadoo sidoo kale sheegtay dowladdu in lagu gubay 7 baabuur kuwaas oo ay saarnaayeen dad shacab ah. Qoraalka ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in dhacdadan ay muujinayso in Al-Shabaab ay tabar dhigeen kadib markii ay kordheen howlgallada ay wadaan ciidanka dowladda, kuwaas oo ka socda gobolka Hiiraan oo ay iska kaashanayaan ciidanka dowladda, maleeshiyaadka macawisleyda iyo kuwa maamulka Hirshabeelle. Ugu dambeyntii, qoraalka dowladda Soomaaliya ka soo baxay waxaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay sii wadi doonto howlgallada Al-Shabaab looga saarayo deegaanada gobolka Hiiraan si looga hortago weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan Soomaaliya. Weerarka kooxda Al-Shabaab maanta ay ka geysteen gobolka Hiiraan ayaa waxaa saameyn uu ku yeeshay dadka deegaanka, waxaana go'an isgaarsiinta, iyadoona xaaladdu ay tahay mid aad u cakiran. Tan iyo markay bilaabeen ciidanka dowladda howlgallada ka socda gobolka Hiiraan, kooxda Al-Shabaab ayaa iyaguna bilaabay weeraro ay ka fulinayaan gobolka, kuwaas oo ka dhacay dhowr deegaan oo ka tirsan gobolka Hiiraan.